Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaalo lagu magacaabo Tyler oo ku taalla gobolka Texas ee waddanka Maraykanka. January 2017, James Blanks oo ahaa 73 jir, isaga iyo xaaskiisa waxay imaadeen guriga kadib markay ka imaadeen ciyaar qamaar ah oo ay soo ciyaareen. Markii ay gurigooda imaadeen wax yar kadib, James waxaa ku dhacay wadne xanuun, kadibna waxaa loo qaaday isbitaalka. Waxaa la geeyey isbitaal lagu magacaabo Mother Francis Hospital. Isbitaalkaas markii la geeyey, qolada isbitaalka waxay ku yiraahdeen waxaa lagu sameynayaa qaliin. Intaa kadibna waxay ku sameeyeen qaliin. Markii qaliinka lagu sameeyey kadib, xaaladiisu ay soo fiicnaatay, waxaana u dhinnaa dhowr maalmood inuu isbitaalka ka baxo. Habeenada ka mid ah, xaaskiisa markii ay ka soo tagtay kadib oo ay gurigeeda aaday oo ay ku ballansanaayeen in maalinka xiga ay kulmaan. Habeenkii markii la gaaray saqdii dhexe, hal mar si lama filaana James waxaa ku dhuftay stroke oo maskaxda ah. Intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu ruxruxmo, sidoo kalena wuxuu bilaabay garaaca wadnihiisu inuu hoos u dhaco. Markii dhakhaatiirta ay imaadeen oo isku dayeen inay badbaadiyaan, waa ay fahmi waayeen horta marka koowaad mushkiladda qabsatay. Intaa kadibna waxaa loo qaaday qaybta gargaarka degdega ah, laakiin wax yar kadib James waa uu geeriyooday. Intaa kadibna waxay waceen xaaskiisa oo lagu magacaabo Kay, kadibna waxay la socodsiiyeen in ninkeeda geeriyooday. Waxayna moodayeen in stroke caadi ah oo madax kaga dhuftay uu u geeriyooday. 6 bilood kadib, 25 July 2017, nin 68 jir ah oo lagu magacaabo Ronald Clark wuxuu yimid isbitaalka. Isagana waxaa laga hayay wadnaha oo wuxuu qabay wadne xanuun. Isna waxaa lagu sameeyey qaliin. Habeenada ka mid ah, wuxuu la ballansanaa maalinka xigay inuu ilmihiisa la kulmo. Laakiin markii la gaaray habeenkii saq dhexe, isna waxaa ku dhacay wixii ku dhacay James oo kale. Wuxuu bilaabay hal mar inuu jareeyo, sidoo kalena garaaca wadnihiisa uu hoos u dhaco, sidoo kalena waxaa ku dhuftay stroke, kadibna waa uu geeriyooday. 9 maalin kadib, waxaa isbitaalka sidoo kale yimid nin lagu magacaabo Christopher Greenway. Christopher wuxuu ahaa 47 jir, isagana wuxuu qabay cudur wadnaha ah. Isagana waxaa lagu sameeyey qaliin. Xaaladiisuna aad ay u wanaagsaneed dhowr maalin kadib markii qaliinka lagu sameeyey, wuxuuna sugayay inuu baxo oo isbitaalka ka baxo. Laakiin habeenada ka mid ah, habeenkii markii la gaaray saq dhexe, isagana waxaa ku dhacay wixii ku dhacay labadii nin ee ka horreeyay oo kale. Hal mar waxaa ku dhuftay stroke, sidoo kalena wuxuu bilaabay garaaca wadnihiisu inuu hoos u dhaco. Intaa kadib dhakhaatiirtu waa isku dayeen inay badbaadiyaan. Isaga waxay ku guuleysteen inuu dhowr maalin sii noolaado oo isla markii uusan hore ka dhiman waxoogaa ay badbaadiyaan. Waxayna marsiiyeen baaritaan jirkiisa oo dhana oo waxay marsiiyeen kombiyuutar. 2 maalin kadib, Christopher isagana waa uu geeriyooday. Intaa kadib dhakhaatiirtu waxay isbarbar dhigeen musawiradii ay ka soo qaadeen maskaxda nimankii geeriyooday, 3 nin. Waxayna arkeen in dhammaantood maskaxdooda ay hawo ku jirto, meelo bannaan oo hawo ay ku jirto in maskaxdooda ay leedahay. Arrinkaasoo ay fahmi waayeen waxa keenay. Intaa kadibna waxaa kulmay dhakhaatiirta isbitaalka iyo maamulka isbitaalka. Waxayna isweydiiyeen waxa sababaya dadkan ay maskaxda uga jirta hawada. Marka koowaad waxay moodayeen in qalabkooda ay wax ka qaldan yihiin, gaar ahaan faleebooyinka. Markii ay baaritaan ku sameeyeen, waxaa u caddaatay in qalabkooda uusan waxba ka khaldanayn. Intaa kadib waxay moodayeen in dhakhaatiirta ama qaar ka mid ah kalkaaliyayaasha ay wax qaldayaan markii ay faleebooyinka ku durayaan bukaanka. Ama waxay istiraadeen waxaa jira qof waxaan u sameynaya si kasta. Si arrinkaas ay u kala ogaadaan haddii uu mar kale soo laabto, isbitaalka waxaa lagu xiray kaamirooyin. Intaa kadib waxay bilaabeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha isbitaalka inay kala shakiyaan. In dhakhaatiirtu ay ku eedeeyaan kalkaaliyayaasha inay wax qaldaan, iyo in kalkaaliyayaashu ay ku eedeeyaan dhakhaatiirta inay iyagu wax qaldaan. Waxaa bilowday is-aamini waa ama isku kalsooni la'aan ka dhex dhalatay shaqaalaha isbitaalka. January 2018, waxaa isbitaalka yimid nin lagu magacaabo Joseph Kalena oo 58 jir ah. Isagana waxaa lagu sameeyey qaliin dhanka wadnaha ah. Isagana xaaladiisu waa ay fiicneed sidii kuwii hore oo kale. Habeenkii markii la gaaray 1 habeenimo ama 7 saac habeenimo, isagana waxaa ku dhacay wixii ku dhacay nimankii hore oo kale. Isagana waxaa ku dhuftay stroke oo madaxa ah, sidoo kalena wuxuu bilaabay garaaca wadnihiisu inuu hoos u dhaco. Isagana waa uu geeriyooday. Dhacdadan markay dhacday kadib, maamulka isbitaalka waxay dib ugu laabteen muuqaalkii ay duubtay kaamirooyinkii ay isbitaalka ku xireen. Waxayna ka bilaabeen 1:22 daqiiqo muuqaalka. Waxay arkeen 1:22 daqiiqo iyadoo qolka Joseph ay u soo kala ordayaan dhammaan kalkaaliyayaasha. Kadibna waxay dib u celiyeen 5 daqiiqo si ay u ogaadaan qofkii galay qolkaas ka hor intii uusan stroke ku dhufan Joseph. Waxyar markii ay daawadeen kadib, waxay arkeen mid ka mid ah kalkaaliyayaasha oo ka soo baxay qolka ay kalkaaliyayaashu qalabka ku diyaarsadaan daawooyinka iyo waxyaabaha ay ku durayaan dadka bukaanka ah. Kadibna wuxuu galay qolka Joseph, waxyar kadibna uu ka soo baxay.
markii uu ka soo baxay cabaar ayuu socday kadibna wuxuu istaagay miis ay leeyihiin kalkaaliyaashu markii uu taagnaa waxyar kadib waxaa yeeray alarmiga qolka Joseph intaa kadibna waxay bilaabeen kalkaaliyaashu inay u kala degdegaan qolka Joseph si ay u badbaadiyaan isagu waa uu taagnaa kaameraduna waxay qabatay isagoo dhinac ka eegaya isagoo fiirsanaya waxa meesha ka dhacaya sidii meesha uu u taagnaa dhowr daqiiqo kadib ayuu aaday dhanka qolka kadibna wuxuu istaagay albaabka xataa gudaha ma uusan gelin albaabka ayuu ka fiirsanayay intaa kadib waxay soo dhoweeyeen muuqaalka kadibna waxay arkeen markii uu ka soo baxayay qolka kalkaaliyaasha inuu wax gacanta ku sitay isla markiiba waa ay aqoonsadeen qofka uu yahay kalkaaliyahaas wuxuu ahaa nin lagu magacaabo William George Davis intaa kadib waxay dib ugu laabteen kiiskii ugu dambeeyay oo dhacay oo nuucan oo kala ah oo ka dhacay isbitaalka wuxuu dhacay 29 bishii 11 2017 haweeney lagu magacaabo Pam Henderson waxaa lagu sameeyay qalliin wadnaha ah waxayna ku jirtay isbitaalka markii dhowr habeen ay ku jirtay xaaladeeduna ay fiicnaatay habeenada kamida iyadoo iska fiirsanayda tablet ama telefoon iyadoo fiirsanayda hal mar waxaa ku dhuftay stroke kadibna wuxuu bilaabay garaac wadnaheedu inuu hoos u dhaco iyadoo waxay ku guuleysteen dhakhaatiirta inay badbaadiyaan laakiin waxay noqotay paralysis intaa kadib waxay dib ugu laabtay 29 bishii 11 muuqaaladii ay duubtay kaamirada markii muuqaalada ay fiirsadeen waxay arkeen intii stroke uusan ku dhufan ka hor qofkii ugu dambeeyay ee qolkeeda gala inuu ahaa William Davis intaa kadibna waxay ka shakiyeen in William Davis oo arrinkan ka dambeeyo laakiin waa ay aamini waayeen in William Davis uu ka dambeeyo sababtoo amaba aysan aaminsaneen ama uma aysan arkeen inay tahay suurtagal in qof shaqadiisu tahay inuu dadka bukaanka ah caawiyo oo dadka bukaanka ah uu adeego oo naftooda badbaadiyo oo naftooda dili karo intaa kadibna waxay isugu yeereen dhammaan kalkaaliyaasha si loo wareysto halaan loogu wareysto William Davis isagana shaqada ayay ka joojiyeen toos lama burin laakiin shaqada ayaa laga joojiyey markii maamulka isbitaalku ay kalkaaliyaasha la kulmeen waraysyada ay ka qaadeen wax weyn kama soo bixin marka laga reebo qaar ka mid ah kalkaaliyaasha oo u sheegay in William marmarka qaar uu isku xir jiro qolka bukaanka isagoo ku andacoonaya inuu daaweynayo ama inuu shaqo ku jiro mid ka mid ah kalkaaliyaasha ayaa sidoo kale waxay u sheegtay maamulka in maalin maalmaha ka mid ah ay u soo gashay William oo la jooga mid ka mid ah bukaanka markii ay u soo gasheen waxay u sheegtay inuu watay silingay cirbad faaruqa markii uu iyada arkay oo ay soo gashay kadibna uu jeebka gashtay kadibna uu iska baxay intaa kadib maamulka isbitaalku waxay u yeereen William Davis si ay waraysi uga qaadaan William markii uu yimid waxay weydiiyeen habeenkaas wuxuu ka doonay qolka Joseph wuxuu u sheegay habeenkaas inuu ku qoraa bukaanka ku jira qolalka 20 18 iyo 19 oo ku dhaganaa qolka Joseph isagu wuxuu ku jira 21 wuxuu u sheegay in marmarka qaar ay kalkaaliyaashu isaga tagaan bukaanka oo markii kalkaaliye uu rabo inuu banaanka wax ka doonto ama inuu xeer soo nasto uu ku yiraahdo kalkaaliyaha kale bukaankayga ii fiiri intaan ka soo laabanayo wuxuu u sheegay in habeenkaas uu u galay si uu u jeegaray in xaaladeedu ay fiican tahay oo wax walba ay sidii la rabo u socdaan markii uu hubsaday in wax walba ay saxan yihiinna oo qolkiisa ka soo baxay intaa kadib waxay weydiiyeen markii qolka ka soo baxday kadib oo alarmiga uu yeeray oo kalkaaliyaashu ay qolka aadeen si degdeg maxaa qolka ugu tagi weyday maadaama ay xaaladiisa markii ugu dambeeyay adigu ka warqabtay wuxuu ku yiri isla markiiba waan tagay laakiin waxaan qaban karay male waa ay ogaayeen maamulka isbitaalka inuu been sheegayo sababtoo ah kaamirooyinka waxay duubeen in markii uu soo baxay uu miis istaagay miiska kalkaaliyaasha 3 daqiiqo ayuu taagnaa 3 daqiiqo kadib ayuu meesha ka dhaqaaqay intii hore oo dhanna waa uu fiirsanayay sidii aan bilow ku soo aragnay sidaa darteed waa ay ogaayeen inuu beenlow yahay intaa kadibna waa iska direen oo waraysi halka ay ku joojiyeen waxayna la xiriireen xarunta booliska ee magaalada Tyler boolisku waxay u soo xil saareen dambi baare maamulka isbitaalku dambi baaraha waxay la wadaageen dhammaan wixii ay macluumaad hayeen muuqaaladii ay hayeen iyo wixii oo dhan ayay la wadaageen marka koowaad waxay baareen habeenadii dadka ay strooga ku dhufteen iyo habeenadii uu shaqaynayay William waxayna ogaadeen in dhammaan habeenada dadka ay strooga ku dhufteen uu William shaqaynayay oo habeenadaas oo dhan uu lahaa shifti intaa kadib dambi baarayaashu waxay markale ku laabteen isbitaalka waxayna isbitaalku la wadaageen natiijadii garaaca wadnihiisa mashiinka ku xiran bukaanka ee sawiraya garaaca wadnihiisa natiijadii ka soo baxday ayay waxay ku sawireen warqad waxayna arkeen xariiqyada sawiraya garaaca wadnaha in waqti ka mid ah waqtiyada ay kor u kacayaan xilligaasna waa xilligii hawada lagu duray faleebooyinka bukaanka intaa kadib waxay isbarbar dhigeen waqtiga ay xariiqyadu kor u kacayaan oo garaaca wadnaha uu kor u kacayo iyo waqtigii Will Davis uu galay qolalka bukaanka waxayna arkeen inay isku mid yihiin
sidaa waxay ku hubsadeen William Davies markii uu qolalka galay in uu bukaanka ku durayay hawo. Wuxuu samayn jiray intuu qolka galo wuxuu soo qaadan jiray silinga iyo cirbad faaruqa, kadibna wuxuu jiidi jiray siliga ayuu gadaal u jiidaa. Markii silingaha ay hawo ka buuxsanto wuxuu samayn jiray faleebooyinka bukaanka ku duran ayuu raaci jiray hawadaas. Markii hawada qofka ay jirkiisa gasho toos waxay u aaday maskaxda. Intaa kadibna waxay ku sababi jirtay bukaanka inuu stroke ku dhaco, waxay kadibna ay geeriyoodaan. intaa markii ay ogaadeen kadib dambi baarayaashu waxay wareysi ka qaadeen William, laakiin waxba kama aysan dheefin. Intii horey uu ugu sheegay maamulka isbitaalka oo kaliya ayuu ayagana u sheegay. Intaa kadibna waxay tageen gurigiisa si ay baaritaan ugu sameeyaan. Markii ay gurigiisa tageen waxay ka soo heleen taleefanno iyo kombiyuutar, waxayna ku sameeyeen baaritaan. Waxay ka heleen mid ka mid ah taleefannada wada sheekaysi dhex maray isaga iyo mid ka mid ah kalkaaliyayaasha. Wuxuu ku yidhi kalkaalisadaas, caawa waan shaqaynayaa. kadibna waxay ku tiri isku day inaadan qof dilin. kadibna wuxuu ku yiri ciyaar iguma yeeraan isku xire wuxuu ka wadaa qolalka bukaanka ee isku xiro. dambi baarayaashu waxay arkeen in ninka uu dilkiisa kuba faanayo oo uu leeyahaba isku xiro la iguma waca beenbeen. sidoo kale waxay baareen historiga waxyaabihii uu gobolka ka baaray. waxay arkeen inuu baaray saamaynta ay ku yeelanayda hawo haddii lagu daro qof bukaana faleebadiisa. qof bukaana haddii faleebada hawo loo raaciyo saamaynta ay ku yeelanaydo. sidaana waxay ku hubsadeen in William uu dilka geystay, sidoo kalena uu qorsheynay inuu dilka geysto. intaa kadib waxay ku yiraahdeen waxaa timaada xarunta booliska si qalabkii aan gurigaaga uga soo qaadnay aad u qaadato. markii uu yimid xarunta booliska, William waa la xiray. Sebtembar 2021 ayaa waxa ugu dambeyn la soo taagay maxkamad, waxaana lagu eedeeyay dilka 12 qofood oo iyaga dhan u geeriyooday sidii ay u geeriyoodeen dadkii uu dilay. laakiin waxaa ku caddaatay inuu dilay keliya 4 qofood. intaa kadibna waxaa lagu xukumay William George Davis xukun dila. gobolka Texas ilaa hadda wuxuu ka mid yahay isaga iyo gobolka Florida gobolada ay ka sii jiraan xukunka dilka ah. ilaa haddana wuxuu ku jiraa xabsiga, wuxuu sugayaa xukunkiisii dilka ahaa. markii la xukumay kadib, maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo wacday xaaskiisa. kadibna waxay ku tiri waxaan rabaa inaan ogaado waxa laga sheegay inay run yihiin iyo in kale. markii hore wuxuu isku dayay inuu been sheego dabcan, laakiin markii ay ku adkayday waxay ku tiri aniga iyo ciyaalkaagu waxaan rabnaa 2 cunug oo dhalay. aniga iyo ilmahaagu waxaan rabnaa inaan runta ogaano. wuxuu u sheegay inuu hawada ku diray isagu, laakiin wuxuu yiri waxaan doonayay in bukaanku dhowr maalmood oo kale ay cisbitaalka ku sii jiraan. kaliya waxaan rabay inay sii jiradaan si ay dhowr maalmood cisbitaalka ugu sii jiraan oo cisbitaalka uu bukaan badan u helo. waxayna ahayd beentiis dabcan, si kasoo wuxuu laayay u laayay. muuqaalka maanta intaasuu ku egyahay. tan iyo kula dadin waxaa kaga tegaya amaana Allah.